كرسي إلهي وبحية لكن قرن أي مهمة تاسو حلنا هاي قرن كان دافعنا جماعة يسقبسوا عسكرت هالودهم وإنا إنه جماعة يسقبسنا إذا مدينة لوجر مده جيسيادة أن وليجو تاريخ وحنو شيءنا رجع كسو أردية متشرتين إيو بوساس إيو كلا كشناد إيو كسماية إيو رير كسوق قيمي تاريخ ذميل لما يقعد كالي تاريخ هلي ميسا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما الله سبحانه وتعالى إلهي قام نمعرض بدين نقول متسيسوا ما له ولا ما أنتوا حن شاء الله هنا إنه كهذا الله حاله الدكتور مريم ذلك إنه ما أنتوا مريم من حالة عن هراء نص مريم المريم وانا انو كدغي انت هاسو سنه كدغي الى ما انت قبتي حكمك مصبح وان اركي ان ارنتين ku dhamaynayso qalalaasa qaran arki waxaanu galay 5 sanadood oo wixii aan kabkabinay maanaba muuse waxa balbukeeta ka saariyay guriga dhisanay qarannimo arinta maanta ka socota laas aanoodna ee hor iyo dawba isagu saabo u haana نعمل حماديسة طيب حمانتيسة ما أنت هالك مريسو هي هالك نمرين وواكلة جاد موسى وحكي حوق بدن قارن كتشريتان كيس يدستورك وحكي حوق بدن كرسي كيس طول يلاها صادق ولا ترتمي هاي ما أنت لو حوي كرسي كيو قارن كبا خطر بكتشره qorshahan maanta socda laascaan ka socda anoo ka xun dadkii ku dhintay mudaharaadkii salmiga ahaa sidii ay ugu dhinteen kuwii joon ku dhintay iyo August ku dhintay Hargeysa Erigaawo iyo Burcawa kuwa laascaan ku dhintay mudaharaadkan waan ka xunay dadka civilka ah ee laascaan ku dhintay dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada qaranka Soomaaliland iyo xoogga ku soo duulay Soomaaliland waan ka xunay qorshahan lagu waxa weeye qorshe Soomaaliland la doonayo in lagaga saaro khariidada Afrika iyo adduunka qorshahan waxa ka shaqeeyay in farmaajo 5 sano oo xamar ku amarto gaarinay qorshahan wuxuu leeyahay guddi sare oo isir ku sameeysan oo 22 G21 leeyahay guddidaas oo rag badan oo siyaasiyiin oo Israa'iil ka soo jeeda beeshaas ay ka mid yihiin sida Umar ra'iisul wasaarayaashii hore Umar Abdirashiid ka mid yahay Abdiwahaab Abdiwaliga magaalada Saaya haanjireen ra'iisul wasaare Farmaajo Faara Macalin oo Kenya ka soo jeeda siyaasiyiinka wasiiraan jiray in jangeli ayaa weey qorshahan wuxuu ahaa qorshe uu Farmaajo sameeyay oo ku xiriira xitaa ciidanka Eritrea loo diray oo ciidan loo soo tababarayo Soomaaliland lagu baabiyo war Soomaaliland waa dalalka Afrika ee xornimada helay 60kii taa Kenya la mid tahay Tanzania la mid tahay Nigeria ma wada qaadan saddexda dal ee Soomaalida ee Djibouti iyo Soomaaliland iyo Soomaaliya waa saddex wadan oo Afrikaan ah oo adduunka yaqaan xuduuda international cid ka saar kartaa ma jirto anaga qaadnay abayaasha qaaday mar oo Soomaaliland iyo Soomaaliya yiin ku sameeyay yiin kaas miciisu ahaa in shan Soomaali la isku keeno koobiyo sideenkii Maxamed Siyaad Barre ayaa ka tanaasulay wadanka NFD leeyahay ee Soomaaliya dhigto toddobiyo toddobaadkina wuxuu ka tanaasulay Djibouti sideedii wuxuu ka tanaasulay Ogaadeen halkaas horta shantii himiladii Soomaaliya isku ku baaba wax maanta Soomaaliland la yiraahdo ma jiri kartana wax aqliga la maaha Maxamed Siyaad Barre isku dayay in himiladii SNM in dalka soo celiso shacabka reer Soomaaliya la xasuuqay uu ku fiirgaroobay maantana G21 ku guuleysan mayso
xaaraan bay ka tahay waxaad socotaa durbaan qabiil oo isira oo meel kasta la iskaga yimi oo laascaanood la doonayo inay noqoto stagekii somaliland lagu burburinayay waxaan leenahay ragga durbaanka garaaciyo isirka ah ee ku samaysan tacasub qabiil arrintu laascaanood ku eekaan mayse geeska intaas afreed soomaaliya degtoo dhan way gaaraysaa muqdishada ay ka soo hanjabisaan ee hub ka soo qaadanaysaan nabad ku joogi maysaa hadday bahasha noqoto isir loo dagaalamo qoomiyadda soomaalidu hadday meeshii wada degtaba ku dagaalamo ta wadan wacaynkaasi laascaanood ku eekaani maayo meelaha ima ka soo gurmateen ayay ka qarxi doontaa gudihiina waxaan leeyahay dadka reer somaliland maanta halka la marayo iyo halka ay layna marinayo iyo saynu nahay isma qabtaan waxaan leeyahay waa inaynu galaa national mobilization waa inaynu gamcaha isqabsanaa ciidamadiina loo gurmadaa geesiyada aan weligood taariikh waxaan u sheeginaa ragga ka soo ordiya majeerteyna iyo boosaaso iyo hilalka shanaad iyo kismaayo iyo ee reerreerka isku qaybiyey taariikhda meel lanagaga adkaaday taariikhda heli maysa leannu anagu dadka ma doonano dulmi ma sameyno waa lana dulmiyaa ilaahayna wuu noo hiiliyaa maanta ilahay baa noo hiiliya subxaana wa tacaala xumaan idima qabno soomaali uma qabno waxaanu ka ammaan la-aana ku ammaan weynay calankii aanu geynay 60kii waanu soo ceshano annagaa dalkaya hagaajisanayna oo idin saamaxay xasuuqi nagu samaysan waxaas ayaan maanta ammaan ku lehnay dembiga laynoo haystaa waxa weeye maxaa siyaad bare loo riday dembiga kaloo laynoo haystaa waxa weeye waa maxamed siyaadkii dagaalada South Africada inagu garaacay isku ka xidhay xabaalihii meel ka daasan ilaa ceergaabo ay sameen sool iyo cayn iyo saan wax leeyahay ma jirto waxaa ku tusbaxaysan saan leeyahay cayn sool iyo sanaag adeer dalka waa la wada leeyahay 60kii waxay 6 degmo iyo 2 sub station sub district las sayra sub district Boorame district Hargeysa district Berbera district Burca district Laascaanood district Eergaaba district sub district laas qoray si loo kala deganaan waa la yaqaan si loo kala deganaan waa la yaqaan aruurta iyo maatida ay ka dhargiseen soo iyo sanaag iyo cayn waxa la ka noqdo wax aqliga gala maayo wax suurtageliyana ma cayn boohooda laba waxa ka soo bixi jiray laba xildhibaan ee ka soo jiray oo dadka wada dega xadkay ku taala wala wada leeyahay districtgaas marka sheekada iska dhaaf waxaan ku talinna reer Soomaaliland maanta Muuse waxaan taaganahay dalka aqligiisa ku daafici meeyne aqligii Soomaaliland halkii maalintii Suldaan uu ka hadlay Suldaan Maxamed Xirsi Qani ayay maanta la taaganahay aqliga Muuse dalka lagu badbaadin maayo wixii aan tala kale nahay Muustana hoos baan u dhiibi doonaa tala qaran ayaa loo baahan yahay oo aan doonino inaynu arrinta Soomaaliland jiritaankeeda ku difaacno ku beenayno beentan dul iyo dibadba la gaarsiiyay ee well calculated ah ee loo kala harin ilaa iyo inta beenta laga buuxiyay iyo taynu ka gaadhino Muuse taladinu ka gaadhino waa laba dhibaato Muuse iyo G21 waxay wadaan waa in taas la ka wada tashana waxaan leenahay garaadada yaan nin aan ku furi jirin iyaanu ku rarin tolnimadeena guri kasta waa laga ooyaya markuu nin laascaanood dhinto markuu nin reer Hargeysa Burca dhinto waa laga ooyaya family baan nahay isdhalay kaabi ah yaan laynagu guurin yaan dhulkeeda baabiin aynu waxaynu dhamaysano magaaladaas aad degtaan strong meesha ugu badan tihiin dalkaas Jamhuuriyadda Soomaaliland waa laascaanood ay diga fiqshin wada degtaan ha ka dhigina batal meeshii lagu dagaalamayay
ragga maanta idin soo gurmadaya guryahoodii iskuuladii way shaqaynayaan ilaa maalintii Soomaaliland qabatay ee la wareegtay xilka laascaanood si ay u horumartay laascaanood jaamacadii Nugaal inta jaamacado samaysantay cusbitaalka imika la wala duqeynaya 2 milyan barbaa lagu sameeyay si magaalada u korto waa aragteen maanta maxaa weeye wahabaaya wala idin soo gurmaday wala bilaqaysanaya tugaraq bi ka caabanaya dadka tugaraq degana inaan ka yimi ma jeerteenaya waxa leenahay ma jeerteenaya waxa leenahay ma jeerteenaya halu gooynina hora berigi aad tiraahay waxa soo rogaal celiyay maxamed siyaad bare ya ruud cadaag ma soo rogaal celiyay soo urursaday idigoo kismaayo mariya ayaa la sheegay markii dagaalku bilaabmay ya meeshan xabadda markay dhacdo munaafaqo ma jirto waa qori ya munaafaqo siyaasadeed oo been ku dhisan lagu xisaabtay waxa leeyahay dadkaas soo lugoynay daris baynu nahay dariska ilaaliya daris baynu nahay dariska ilaaliya 5 milyan iyo bar Soomaali maanta baqtiye dadhaab xitaa qaar ku noqdeen ina maanta ka dhigtaan xiisa Soomaali baan burburina maxamed siyaad burburinka ee sanadka markaa abuurantay ilaahay subhanahu wa ta'ala ka leeyahay ilaah ila allah tawxiidka ku bedeli maysan canankii xasuuqay never again aku xiriyoonane dawladuna waxa leenahay yahay Soomaaliland heshiis wuxuu ka wataa when you are in a strong position marka meel adag taagantay xoog ay nabad ka keenan ka soo noqonayay odayaasha aynaba iska farfadhiyana meesha dawlad biyo waxay sameeyo iyo G21 beela isdili maayaane ka soo noqda oo tala qaran kaalaya si dalka loo daafici lahaa alla isku yimaad saasaan leeyahay waxaan jeclahay inaan arbacada iyo khamiista mid ahaan xildhibaanada reer Soomaaliland ilaahay barakeeyo waa guriga sharciga inoo dejsan maanta xildhibaanada Soomaaliland oo inuu qarankan si loo badbaadin lahaa aan ka wada tashano maadaama ay tihiin saddexdii dhaqaale qaranka mid ka mid ah tihiin waa inaynu isku nimaadnaa qadan isku casuumaya waxaan leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay Soomaaliland ha adkeeyo ilaahay cadawgeena ha jabiyo subhanahu wa ta'ala xaq daro kuma socone ilaahay subhanahu wa ta'ala naga badbaadi shirqool kasto xumi halkii laga soo abuuray ayuu ku noqday ilaahay subhanahu wa ta'ala way ku noqonaysaa insha Allah ta'ala sadaan ucudnahay waa mowqifka waa taqaanaan maalinta xumaataba annaga u soo baxna qarankan iska xigsanina kursiga ilaahay waa bixiya laakiin qaran ayaa muhiima taas waxa leenahay qarankeenu daafacayna hala kaco جماعة يسقبسوا عسكرت هالودهم مقومات هالله سميهم وين بابورهم مقومات يا الله هذا واحد ولا جي عسكرت اللي جريا السكر بتاعه جيش يا ولي ود بان لقى عتكاني نولا هذا ما